ma dhici kartaa marka inaynu aragno inta aan nool nahay ama dhalinyarada halkan fadhida intay nool yihiin ama carruurteennuba intay nool yihiin Soomaaliya oo nabad iyo xasilooni buuxda hesha oo aan dadkeedu maalin walba isdilayn isdagaalamayn dhiig degaankooda ku daadinayn ee ay isu daryeelayaan sida dadka walaalaha ah ee ay yihiin danahooda qarannimada ay daba joogaan ma dhici kartaa inaan aragno Soomaaliya oo dowladnimadeeda iyo gobonnimadeeda si buuxda u soo ceshata oo hay-adaha dowladnimada lagama maarmaanka u ahi ay si hagaagsan u shaqaynayaan oo dowladda xukunkeeda iyo authority-geedu uu gaari karo dalka oo idin oo ummadda Soomaaliyeed nabadda xasiloonida bulshada waxbarashada caafimaadka iyo adeegsiyada kulligood ka simi kada dowlad ka simi kada inta ma dhici kartaa inaan aragno Soomaaliya oo isxukun iyo ismaamul wanaagsan oo cadaalad ku dhisan ka hirgalay oo meesha ay maanta ka taagan tahay lambarka ugu hooseeya waa lambarka 54 Afrika oo good governance index-ka oo Afrika loo sameeyo u dallacday 10 ka hore at least ee qaaradda Afrika Soomaaliya oo qof kasta ee dalka degan uu nabad ku seexan karo nabad ku soo toosi karo meeshuu doonana nabad ku mushaahi karo ma heli karna ma se dhici kartaa inaan aragno ummadda Soomaaliya oo awood u hesha inay aayataynkeeda ka taliso go'aanada mustaqbalka dalkeeda iyo dadkeeda xornimo iyo dimuqraadinimo ku qaadato iyadoo awood u leh inay doorato siyaasadaha iyo hogaamiyeyaasha ay rabto baqdin la'aan cunuf la'aan dil iyo dagaal la'aan musuq maasuq la'aan ma dhici kartaa inaan aragno ummadda Soomaaliya oo aan qabiil wax ku qaybsanayn oo aan qabiil ku ficiltamayn oo aan qabiil isu dilayn oo aan qabiil u dagaalamayn ama isu kala soocayn ee Soomaalinimadooda ku faanaya oo daacad u ah qarannimadooda Soomaalinimadooda iyo dalkooda ee aan daacad qabiil u ahayn dadweyne Soomaaliyeed ee isugu dhiidhiyaya qarannimo isu taageeraya Soomaalinimo isu daryeelaya sida walaalaha ay yihiin intay ka ficiltami lahaayeen oo ama ay ku ficiltami lahaayeen qabiil ama se isqaybin maalin walba ma dhici kartaa inaan aragno Soomaaliya oo dadkeeda saboolnimada ka xoreysay oo 90% dadweynaha Soomaalida dakhligoodu ka sareeyo laynka saboolnimada ee $2 maalintii ee qaramada midoobay ay soo saarto waxay ku qiyaasayaan maantay qaramada midoobay in 70% dadka Soomaaliya ay ku nool yihiin xaalad ka hooseysa laynka saboolnimada marka ma dhici kartaa inaan aragno intaan nool nahay ama inta carruurteennu nooshahay Soomaaliya oo saboolnimo dadka Soomaalidu ka dabargooyeen maxaa yeelay gacantooda ay awooddaas ku jirtaa iyagayna ku xiran tahay ma dhici kartaa inaan aragno iyadoo sanad walba aan lana ka tusin telefishinada adduunka
dad Soomaaliyeed oo u dhimanaya gaajo, dacdarro iyo daryeelid la'aan. boqolaal kun oo Soomaali ah oo degaankoodii ama guryahoodii ka cararay dagaal awgiis, gardarro ah oo aan gar lahayn ama macno darro ah oo la gaarsiiyey awgeed iyo inayan galabsan waxayan galabsan inay dhacday. ma dhici kartaa inaan aragno Soomaaliya oo dhalinyaradeedu waddankooda tacliin iyo shaqo ka heli karaan, ku faani karaan, xirfado kala duwan ku baran karaan, daryeel iyo daadihin waalid iyo dowlad ku haystaan. Soomaaliya oo dhalinyaradeedu ayan dhimasho ka dooranayn dalkooda ku noolaashihiisa, oo aan dalal shisheeye magangelyo ugu cararay. maanta qaramada midoobay waxay ku qiyaasaysaa in 70% dadka Soomaaliyeed degan ay 30 sano ka yar yihiin. hase yeeshee dhalinyaradaas 60% waxbarasho ma heli karaan, 44% waxna ma qori karaan, waxna ma akhrin karaan, 67% shaqo ma haystaan, 75% dhalinyaradaas waxay rabaan inay waddanka ka tacaburaan berrito oo ka cararaan. ma dhici kartaa inaan aragno iyadoo dadka Soomaaliya degan 90% waxna qori karaan, waxna akhrin karaan, himiladeennu ma noqon kartaa ilayska cilmiga ay arki karaan, xirfad iyo xaraf ay ka siman yihiin, aqoon darrada iyo jaahilnimada waddanka oo idin laga dabargooyey. maantay 35% oo keliya ayaa qaramada midoobay ku qiyaastay in dalka Soomaalida dadka wax qori karaa ama wax akhrin karaa ay yihiin. aad iyo aad bay u hooseysaa in dadkeena 35 keliya ay wax qori karaan, waxna akhrin karaan. waana wax aad iyo aad looga caroodo. marka wax ma laga qaban karaa mase dhici doontaa inaan aragno iyadoo 90% ay wax qori karaan. ma suurtowdaa inaan aragno iyadoo buugaagta cilmiga ah, suugaanta, taariikhda iyo siyaasadda ee adduunka ka soo baxa af Soomaali lagu tarjumayo ee dadka Soomaalida loo baahinayo oo ay awood u leeyihiin inay afkooda ku akhristaan adduunyada cilmiga ka soo baxa. ma dhici kartaa inaan aragno dadka Soomaaliya oo dalkooda bacrinta ah wax soo saar beereed oo ku filan kala soo baxay. ma dhici kartaa inaan aragno ummadda Soomaaliyeed oo si buuxda u aqoonsata dowrka udub dhexaadka ee haweenka Soomaaliyeed uga jiraan bulshada, oo xuquuqda gabdhaha dhowra ee ilaaliya, oo xukunka dalka iyo maamulka heer kasta ee bulshada ka qaybgeliya, sharaftooda iyo xurmadoodana u dhammaystira. dowrka haweenka la'aantiis unugga bulshada ee reerka ah wuxuu u kala dhici lahaa si aan caqliga gelayn oo ka liidata 100 jeer siduu maantay u kala dhacay. su-aalahaas 11 iyo kuwo ka badanba waxay meel u yaalliin ummadda Soomaalida, waxgaradkooda, aqoon-yahankooda, rag iyo haweenkooda, hogaamiyeyaashooda. waxaana halka aan ugu soo qaaday maanta, idinkaana inta joogtaana ugu horeysa, intiina maanta inta joogta. waxaana halka ugu soo qaaday maantay 11 su-aalood masal ahaan inay noqdaan khariidad waddo, roadmap iyo ajanda lagu shaqo galo ee maskaxda maalin kasta lagu hayo. maxaa yeelay haddaynaan aragti vision maskaxda ku hayn meelna gaari mayno. waa inaynu vision leedahay. waa shaqo dadka Soomaalida sugaysa. intiina halka joogtana saan yiri ayaa ugu horeeya.